بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا اسكلم هذا لكوبي كرين كدب waxaan u mahad celinaynaa mu'asasada Ansaari Sunnah oo soo qabanqaabisay kulankan qiimaha leh iyo dadka soo xaadiray dhamaanteen kuwii isku liibaana Allah naga dhigo aamiinaha. intaas kadib hadda waa maqlayseen kelimadii qiimaha lahayd oo qiirada lahayd uu noo akhriyay sheekheena Sheekh Maxamed Idriis. ummadda Soomaaliya daawadeedu qabyaalad maaha, daawadeedu waxa weeyaan waa islaamnimo iyo soomaalinimo weey. marka waxyaalaha lagu daaweyn karo qabyaaladda lagu daaweyn karo waxaa ka mid ah in dadka Soomaaliyeed ay yeeshaan shaqo kale, shaqada kale ah wax loo shaqeeyo oo qiimo leh, oo haddii la shirayo loo shiro, oo haddii qaaraan la bixinayo loo bixinayo, oo haddii loo xanaaqayo dartiis loo xanaaqayo, la isku jeclaanayo. waxaasi maxay yihiin? waxaasi waa islaamka in loo shaqeeyo weey. meeshii qabyaaladda loo shaqayn lahaa oo qabyaaladdu dhiigaaga iyo dheecaankaaga iyo dhaqaalahaaga iyo qalbigaagaba ay ka cuni lahayd, booskeeda islaam in loo shaqeeyo in la geliyo weey. islaamka loo shaqeeyo marka in la isku kaashado ayuu u baahan yahay, waana wixii lagu soo caanamaalay islaamkeena maalintii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu jibriil u yimid. jibriil muxuu keenay? jibriil lacag miyuu keenay? boorso dahaba miyuu keenay? jibriil wuxuu keenay iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انت أسوكاني كدبنا ويسكبح. وحا سؤال مركا هذا جبريل شقع علص بوكاني، مسؤوليات بوكاني، مشروع بلاران بوكاني، مشروعا بلاران رقائه لقوة لها آوي حق إلهي بكيمد خزائنتي سماوات كأرض إلهي إسكالها بكيمد. حوغا لو مسو ديبين مياه حوغا لغسي وضو لبدا سنة هوري ويران dadka gaalada la iska laaluusho. jibriil waxa ma keenin oo marka mashruucan ballaaran yaa maal gelin doona, mashruucan ballaaran yaa u fakari doona, mashruucan ballaaran qabiilkiisii aaway, dadka mashruucan aamini doona oo diintan qaadan doona ayaa maal gashan doona, ayaga ayaa difaaci doona, ayaga ayaa u shaqayn doona. sidaas bayna noqotay, sidaas baan islaamku nagu soo gaaray. islaamka dadkiisa u shaqaynayay, islaamka dadkiisa ayaa maal gashanayay, ayagaa u fakarahayay, ayagaa ka naxahayay, ayagaa ku farxahayay. marka in loo shaqeeyo islaamka iskaashigaas ku bilaabatay. dadka muslimiinta waa dad wanaagga isku kaashada, wanaagga isku sheega, xumida iska reeba. waxaa garanaysaan waxa loo yaqaano al-amru bil-ma'ruufi wan-nahyu 'anil munkar. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل إذن كهلوا بو إلهي ليه إله سبحانه وتعالى أي أمر بحناية إلهي وحليه. هل إذن كهلوا ضد يكوح ضدك وناقة ويريسة، ضدك وناقة فريسة، حميدك الريبيسة، waa in la helaa baa la leeyahay. marka iskaashiga noocaasa haddaan la helin waxaa booskiisa galahaya waxyaalo kale
oo loo shaqeeyo oo hadda midii sheekh uu ka sheekeynayay ah iyo waxyaalo kale oo maalayacni ah. qabiil baa loo qaybsamayaa, waxaa loo qaybsamayaa kooxa kala taageera kuwa kubadda ciyaara. qaar waxay taageerayaan naadiga loo yaqaano hebel hebel, qaar waxay taageerayaan hebel hebel, qaar nin hebel bay maaragtay maxaanku caleema saaranayaan. dhallinyaradeenii ummadda nuxurkeeda ahaa, ummadda ka dhaqaaqaysay, ummadda u fakaraysay, haddii qaar ay qabyaalad wadato, qaarna naadiyaasha yurub ka cayaarahaya ay kala taageersan yihiin, ummaddii aawe marka. islaamkeenna iska daa in dadka muslimiinta ay wanaagga samayn waayaane waxaa la caybeynayaa kuwa wanaagga isfari waaya. imise meelood baa qur-aanka ku aragtay isagoo odhanaya walaa yaxudu calaa طacaami almiskiin walaa taxaaduuna calaa طacaami almiskiin. miskiinka ma quudisaan ma aha, miskiinka in la quudiyo iskuma dhiirisaan. quudilaan laga hadli maayo, waxaa laga hadlayaa maxaa iskugu dhiirin la'dihiin. marka in la isku dhiiriyo ayaaba shaqo gaara ah. adiga wax siinta qofkii waxayaa wax siinaya, laakiin in la isku dhiiriyo oo codkaasi la maqlo oo codkaasi uu shaqaynayo ayaa loo baahan yahay, oo muslimiinta laleeyahay arrinkaa iska ilaaliya. oo dadka gaalada ah waxaa lagu ciqaabayaa laa yuuminu billaahi alcadiim walaa yaxudu calaa طacaami almiskiin baa lagu daray. marka midna waxaa weeyaan xaqullah, midna waxaa weeyaan xaqunaas weeye. marka haddii xaqullahi aan ku dadaalno, waa aragtay waa tukanaynaa maasha allah, gabdhaha allaha barkay waa xijaaban yihiin, waa la soomahayaa, laakiin in wanaagga la isku sheego oo aan wanaagga u shaqayno oo isku kaashanno ayaa loo baahan yahay. qaala tacaala watacaawanuu cala albiri waاltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan. waxaa la leeyahay isku kaashada albir, ixsaanka weeye, wanaagga weeye, wataqwa alla ka cabsiga, isku kaashadaa leeyahay. bimacnaa shaqadaas shaqo u baahan in la isku kaashado weeye, oo maaragtay ra'yi la keeno, oo talo la keeno, oo xoola la keena loo baahan yahay, oo qofku ugu yaraan mukushiisa iyo muuqaalkiisa uu keeno. waa garanaysaan markii nebigu sala allahu caleyh wasalam iyo saxaabadii kale madiine u haajireen, hijrada waa la waajibiyey. maxaa loo waajibiyey? waxaa qof kasta waa inuu tagaa madiina. xoolaha haysanin waa inaa iska xaadirisaa madiina munawara. maxaa yeelay dadka muslimiinta muuqaalkooda iyo maaragtay muunadooda ayaa xoojinaysaa. haddii xataa aadan xoola haysanin, in halkaa la buuxoo la badan yahay macnay samaynaysaa. haddaadan xoola haysanin, fakar baa keenaysaa, waxbaa soo curinaysaa. waa garanaysaan maalintii khandaq, qaswatulaxsaab, fikraddii lagu badbaadiyey madiina oo ilaahay uu gaalada ku jabiyey, nin baa keenay, waa salmaan alfarisi, ayaa wuxuu yidhi magaalada aan ka qodno waxaa loo yaqaano alkhandaq ha la qodo. fikrad buu keenay. salmaan alfarisi miskiin buu ahaa, nin faris ka yimid buu ahaa, nin xoola haysta ma ahayn, laakiin fakar iyo raganimo iyo caqli buu keenay. marka maanta waxaa laydinkaga baahan yahay in islaamka iyo dacwada fakar aad gelisaan baa la rabaa, oo gurigaaga iyo dariskaaga iyo intaad taqaanid in islaamka loo shaqeeyo ayaa laga maarmaan ah. nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii ilaahay uu nebi ka dhigay oo risaalada loo dhiibay, muxuu codsaday? wuxuu codsaday in walaalkiisa haaruun lagu soo biiriyo. wajcal lii wasiiran min ahlii buu yidhi, haaruuna akhii ushdud bihi asrii wa ashrikhu fii amrii buu yidhi. marka nebi muuse ayaa dalbanaya qof walaalkiisa in lagu kabo oo xoojiya. marka haddii nebigii u baahday in lagu kabo qof, waxaa weye annagu min baabi awlaa waa kasii xag jirnaa weeyaan. ilaahay subxaana wa tacala nebi moxamed ayuu wuxuu u galladaysanayaa inuu ilaahay uu guul siiyey, ilaahayna
ودد في عنسيي وأيدك بنصره وبالمؤمنين بالير إلهي وحكوكو تاغيري قول حقي سأه إياني من رقعهم مؤمنين أيها لقوكو تاغيري وإلهي كسيي ودين تان مسؤولية ديدا كل حنبارة هي وكل قاضة هي أمد المسلمة وأمد رسالة له وأمد مسؤولية لصاري وأمد كسو عن أمدها كلا إلهي سبحانه وتعالى مالتي النبي الله نوح دولك أودجا هيي وبيها أي مار تقللين ونرشوا مركلة أي بلابنا السي أيا إلهي وحشيجا يا أمدها إيمان دونا أنت يكلم نقول دونا قيبوت قيب وضد النبي أسرع عيسى يا أنبياء كلا وأصحاب رسالة يا قيب أصحاب عيارة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وغيب وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم إلهي نبي نوح دق أديك يدك دق دولك عميرة كركاغا بركوين ينبت قليا أهاتي يكوا أديك كراعة هيا كوا أديك كراعة سلام يا بركات بيليهن وأصحاب الرسالة ويان وأصحاب التوحيد وأصحاب مسؤولية مع صهري وأمم سنمتعهم أمضنا وأراحينينا ويعبيان ويعنيان ويعياريان ويباشاليان ثم يمسهم منا عذاب أليم كدبنا وحا حقنا كسو قاري دونه عذاب أليم marka ummadahaasi la cadaabi doonaa ummado risaalo leh ma aha ummado ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran ma aha ummado khabarkii ilaahay haya ma aha ummado war haya maba ahaba meeshay cirka fiirin lahaayeen oo samada fiirin lahaayeen oo ilaahay aamini lahaayeen dhulka la fiirinayaa kubadaas maaragtay caagaas la buuxiyey oo la afuufay ayaa la daba joogaa midka laada iyo meesha ku laaday iyo intuu dhaliyay ayaa la fiirinayaa goolkaas ayaa lagu farxayaa goolka ayaa lagu murgahayaa ummadda noocaas ah ummad risaalada ma aha waa ummad ilaahay leeyahay thumma yamassuhum minna cadaabun aliim marka ummad muxamadiya oo aan ka mid nahay waa ummad risaalo leh waa ummad wadadii nebiyada haysa waa ummad إلهي بركذيسا إيا نبذقليذيسا إيا رسالذيسا أي حنبارسيهن إلهي سبحانه وتعالى وحنو الشيء يا ضدك أهلو إيمانك رق إيا الدمر واليهن لكن شقذو ذو محايتهاي وسؤال أهلو إيمان باتهاي رق باتهين دمر باتهين دلنيراتهين شقذ النوطة على محايتهاي آية دقيستا إلهي إلهي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله شغل أصنع الله هذه أهل الإيمان ليهي صلاة وانغانا أيضا واشيقيسا زكاة وانغانا أيضا واشيقيسا لكن معك أوريا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كتب ليلي ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله مركا انت عن سبينه محان هلينا أولئك سيرحمهم الله كوا مؤمنين أو رقع دمركا أو أولياء بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض اسكت دوبان oo xigta isku ah oo istaageeraya oo isgaashaan buursanaya oo shaqo ka wada dhaxayso marka iimaanka ayaana walaalaynaya shaqadana waana walaalaynaysaa marka inta la sameeyo naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala
ayaan helaynaa oo adduunka aan u baahannahay aakhirana aan u baahannahay. waa garanaysaan dhammaantiin suuratul casri oo asbaabta liimaanta iyo asbaabta badbaadada lagu soo koobay. walcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat. waxaa gaar loo saaray watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr, ayadoo oo camalka saalixa soo gelayaan oo ay ku jiraan ayaa waxaa la yidhi si gaar ah isku dardaarma xaqa, isku dardaarma sabarka. التواصي واسكو دردارا وتفاعل، بمعنى وحاوية حقو كإيمانيا حقو كإيمانيا حقو كإيمانيا حقو كإيمانيا. إن وناقل اسكو دردارمه ضد قارة أو لما جره ضد قارة أو لقو يقانه إن وناقل الشيغان يكون لقو يقانه إن اسكا عمسنادان ما جرتماش. waxaaweeye wax ka wada dhaxeeya oo dhammaantood ka wada shaqaynayaan weeye. culimmadaa sheegaysa, caamadaa sheegaysa, ragga ayaa sheegaya, dumarka ayaa sheegaya. saasaa loo baahan yahay. laakiin in la yidhaaho culummadu ma hadlaan, culummadu ma sheegaan, culummadu ma warramaan, adigu waa taqaanaaye adi maxaa ku aamusiiyey? haddii la iskaashado waa garanaysaan wanaagga ay leedahay. hadda waa anigii sheegaynay diintaanu marka ay timid dadkii diinta soo galay maxay sameeyeen? abubakar radiallahu canhu xoolihiisii ayuu ku bixiyey, wejigiisii iyo magaciisii ayuu isticmaalay, saaxiibadiis ayuu diinta soo geliyey. raggii akhyaarta ahaa ragga badan oo ka mid ah maarata 10 alcashara المبشرين بالجنة إن بدلوا كمذا أبو بكر باكيني محايلي صاحبي أهين. ما أنت إمسا صاحب على ذهي إمسا قريها نوجوكتا إمسا نقارنايو عن إسلام أهين. أما إسلام إسكا مقعاه أو فسق سمين يا أما حمي سمين يا. نبي صلى الله عليه وسلم مركو هاجرة هي هجرة ديسا حوله كبحي حقا لغا كيني neefkii geelaha oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu raacay oo Abu Bakar uu raacay geel xagga jannada ka yimid miyuu ahaa? maya, waa la gaday, lacag baa lagu bixiyey, weliba lacagtaas lacagtooda bay ahayd. nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar lacagtooda la baxayeen si neefka ay fuulayaan u gataan. waa la yaab. ilaahi subxaanahu wa tacaala nabi muxamed waa isagii dheelmiyey oo samaawaadka geeyey haddana soo celiyey. saasoo kale ilaahay intuu maka ka wado dhag ma siiyo oo madiina geeyo asay abubakar, bal saxaabadoo dhan oo maka joogtay oo la dhibahayey oo la imtixaanahayey ilaahay maaragtay hal mar si la yaablo mucjiza ma u raro oo ka dejiyo. maxaan ku yidhaahaa madiina munawwara oo ma la saaro helicopter ilaahi ah maxaa lagu saari waayey? maya, annagaa nala barayaa in aan lugaheena ku soconno, in aan lacagteena la baxno, in aan islaamka maal gashanno baa nala barayaa. nebigu sala allahu calay wasalam la dheelmiyey ayaa lugaynaya oo god gelaya oo god ka baxahaya oo neef iibsanaya oo neef korahaya oo soconaya oo haraadahaya. waxaa lagu leeyahay waa kaas nebigaagii ee ku dayo. waddadaas mar baa lagu leeyahay, waddadaas baa la raba in la maro si loo liibaano insha allahu tacaala. haddii islaamka iyo wanaagga la isku kaashado camalku waa barakoobayaa. hadda waa u jeedaan mu'tamarkan ka jira meesha oo khayrka badan. mu'tamarkan yaa ka shaqaynaya, imise qofka ka shaqaynaysa oo isku kaashanaysa oo qofba uu shaqahaya. nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis buu ku leeyahay xasan ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala gamuunka hal gamuun oo lagu gamo oo loo isticmaalo jihaadka 3 qof ayaa ku liibaana. kii gamuunka sameeyey oo sanceeyey oo markuu samaynayey ajar rabay iyo midka gamuunka keenay oo bixiyey
iyo midka gamuunka tuuray waa 3 qof ayaa jannada ku galaysa hal gamuun oo la tuuray maxaa yeelay ninba meel buu ka soo galaya soo garamaysid marka hadii diinta loo shaqeeyo hal amal oo la qabtay ayaa intaasoo qof ku liibaanaysa oo ninba wax ku yeelanaya fadligaas ayuu leeyahay waxaan ku soo khatimayaa walaalayaal diinteena markana soo gaartay oo aan maanta haysano wadadaas nagu soo gaartay waxay nagu soo gaartay wado dad isxilqaamaya ayaa na soo gaarsiiyay oo dadaalaya ana waxa la rabaa inaan sidii ku sii wadno ayaa laga maarmaan ah waxa loo baahan yahay marka in islaamka loo shaqeeyo oo dacwada laga shaqeeyo oo la isku kaashado inay noo noqoto shaqo qiimo leh oo qaali ah oo aan kaga nasanno shaqooyinkan maalayacniga ah oo nadishaday oo ummadda isku halaagaya oo qabyaalada iyo qurunka hadda ayaa naloo sheegayay shiikhuna waa sheegay Soomaaliya meel kastoo degan yihiin dagaal baa ka socda laga soo bilaabo waqooyiga ilaa koonfurta laba la isku haystaa qabiil baa la isku haystaa dhul baa la isku haystaa daaq baa la isku haystaa barkad baa la isku haystaa iyo waxa maalayacni ah ummadda noocaasa haddii risaaladan iyo diintan ay ka shaqayn lahaayeen dagaalkaasba waa la iloobi lahaa dadku dacway u bixi lahaayeen dadku khayrka ayay sheegi lahaayeen dadku meelo fog ayaa laga fakari lahaa janno ayaa laga fakari lahaa aakhiro ayaa laga fakari lahaa ridaha ilaahay baa laga fakari lahaa haddana intaan isku soo noqonnay ayaa kii dariskaaga ahaa oo xaqa islaamnimada lahaa oo xaqa darisnimada lahaa oo weliba la kala guursanayo la kala qabo caruur la kala qabo oo xidid leeyahay oo xigaal leeyahay qof laga yaabo inuu 5 xaq leeyahay ayaa dilaysa meeshii loo baahnaa in islaamka caalamka aad walaalaysatid inaad ka hadashid Falastiin xagee maraysaa Suuriya xagee maraysaa maxaa nooga eg xagee wax marayaan ayaa waxa ka fakaraysaa qof walaalkaaga ah oo dariskaaga ah ayaa isku maqan tihiin oo isku dhakan tihiin oo islaaynaysan haddii camalka dacwada loo maartay la galo oo laga shaqeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo barakeynayaa dhammaan nolosheenna way barakoobaysaa marka xataa jiifno marka xataa xoogaa iska nasanayno ajir baan helaynaa maxaa yeelay niman shaqo ka yimid oo shaqo u nasanaya baan noqonaynaa qofka markuu shaqo leeyahay shaquu ka imaanayaa wuu nasanayaa shaquu u nasanayaa marka nasashada shaqooyinka ku dhex jirtaahi cibaaday noqonaysaa sida Bukhari warinayo laba saxaabi Abu Musa al-Ash'ari baan filay inay ahaayeen iyo Mu'aad bin Jabal ayaa ku kulmay Madiina isku arkeen markaasay is waraysteen bal ka waran salaadaada iyo quraankaaga ka waran iyo cibaadadaada marka nin baa wuxuu yiri anigu waxa weeye waxaan ilaahay aan kaga ajar rabaa ama ajar ka malaynayaa hurdadayda ajar baan ku rabaa sida qiyaamul leylkayga aan ajar ugu rabo saasuu yiri innani ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati ayuu yiri hurdadayda ayaan ajar ku rabaa sida aan qiyaamkayga iyo salaadayda ajar ugu rabo maxaa yeelay nin diin u taagan weeye qofka diinta u taagan oo dacwada u taagan oo wanaaga u taagan hurdadiisu cibaado weeye maxaa yeelay qof mashquula weeye saacadaha yar uu helay ajar baa laga siinayaa uu nasanayo marka cibaadada iyo amalka saalixa ah haddii lagu mashquulo insha Allah taala oo dacwada ay noo noqoto shaqo waqtiga barakoobahaya waqtiga firaaqada ah ajar badan baan ku helaynaa waqtiga hurdada iyo nasashada ah ajar baan ka helaynaa xoolaha la galinayo ajar baa laga helayaa gabdhaheena Allah khayr siiye oo inta shaqaynaya oo guriga ka shaqaynaya waa inay fahmaan haddii adiga iyo xaajiga iyo caruurtu ay dacwada ka shaqaynayaan oo diinta ka shaqaynayaan shaqada aad haysid cuntada aad karinaysid
dhulka aa xaaqaysid kulli cibaaday noqonaysaa maxaa yeelay mashruuca guud ahaaneed xisaabta guud ahaaneed ayay soo gelaysaa soo garamaysid guriga barakoobahaya carruurta ayaa salaada kaa baranaysa carruurta ayaa adkaarta kaa baranaysa carruurta ayaa diinta ku xirmaysa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dhammaanteen inuu naga dhigo kuwii diinta u shaqeeya oo diinta isku kaashada oo dacwadan sharafta leh qayb ka qaata dacwada adiga u baahan in diinta loo shaqeeyo adiga u baahan diintu adiga kuma baahna dad badan oo malaayiin ah oo horay u maray oo soo mari doona oo diintan haysta ayaa iska buuxa haddaa arkayseen haddaa la islaamahay kuwa noocaasoo islaamaya ayaa iska badanaya marka diinta in loo shaqeeyo oo islaamka loo shaqeeyo oo dacwada loo shaqeeyo waxa weeyaan adiga ayaa sharaf ku helaya adiga ayaa karaamo ku helaya adiga ayaa barako ku helaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu acmaasheenna aqbalo inuu dembigeenna u dhaafo inuu dadka iyo dalka iyo noo hagaajiyo dhammaan wasala allahu calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh